الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وآيات كاسو صعدين قارئ وآخرين دون إن شاء الله. كلمتنا حول تذكر الموت وحسوس الجاردة. جارده وسفر أيوري لقى جوريو ماشى دمانيس ولا جوريو ماشى لقوا واريو والرحلة سفر وين، لكن سفر كان سفر هذا كلا أفر الريموت بكجد وين ومضان إن هاست كعلى مدينه توه الرئيس ويا أنا سفر كاني ولا جم بارمان سفر هذا كلا أنتوا هذا بدنا قصب معها اختيار بعض لا أنا روان إسكتشوبي تنبأ وما أركي جده سفر كا، لكن كان وقصب كل نفس ذائقة الموت وسبيل كل حي نولك استوضأ ومريوي قف قفي كريا من نولك قفي كريا متشرو وحلا بعده كجد ويه لا رجوع فيه سو نقض مله وحسو نقضي لا إلى متشرو. إلهي وحده وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحممنوعة هديو ما يدون كان كتكتين يسوى النقضان هو وين ورئيسنا ورب الآخرة كورنا ولا كأي هالك استزاي ورمحانو كيالنا ولا حاجة. أنت الدليل كي نوقش يقوم بينه عينا مركز سفر هذا كلارنا هبلو صون قنيا سفر كان لكن صون قش ماله مركز الدحاض وكجد وياها وحوي مفاجأة بدون إنذار وحوجيسيس ماله فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. إلهي بأوحد البني آدم كمر كان توماتي الله له دردارا ماله dadkoodiina kuma noqon karaan war wallahi helay sidaan aan ahay bariga war haya ma jirto tawsiya ma jirto heerkiina kuma noqon karay waa mufaaji'a. imisa nin xoolihiisiyo bislaaday iyo baylahadiisiyo hareeraha taala ka dhax baxay oo ka dhaqaajiyay waa macruuf. safarada kale warbal goortaasaan tagaya muddadaasaan maqnaanaya waxaas la yiraahdaa kani malaha. safarkan safarada kale wuxuu kaga duwan yahay quustiisa dhow ama ilowgiisa iyaba waa xikmad Ilaahay midkaynu aasna ayaamu baynu indhaha u yara marmaranayna u yara barooranayna iyar kadib baa la ilaawayaaba. xikmaduna saasay ku jirtaayo haddaynu wada xusuustaan lahay wixii dhintay oo dhan muruga daraadeed baynu waalan lahay ilaa 10 awow haddaynu imika geeridoodii qalbigeena ku jiri lahayd noloshu dhan may samaysteen oo sacaado ma yeelatay. laakiin inaynu ilowna inaga dani noota محدثكي ويناي وعيركها ابن سماك أيام مالين بوحدة حبالان مروحا أركي حبال سدح بيد وقبايا أيا كدو القرآن عجيبة وقفنا الله إسكردق ينو دينتي وكلا أبا حلقة يا قف كان دينتي وصوها الله وحوليه تمر أقاربي جناب قبري وكأن أقاربي لا يعرفوني وذو الأموال يقتسمون مالي ولا يألون أن جحدوا ديوني وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيا لله أسرع ما نسوني أو فيا الله أسرع ما نسوني. وحول قرابة ذي كقبرك كتير صهر الله يحول قرابة ذي وإسكاك أجمر مريا وحنا لما وذا أنا إجرنا ينبأ كأنهم لا يعرفوني سيدي لا وين مركبة. وذو الأموال يقتسمون مالي كوي حولها لها حكتة إذا هم بابا أنت يدي كلا قاطيبة واحدة حلايدا بيسميرو ولا لك التجيبة أنت أنا كنت بعيان كل ذي ذنكوها وشاطئ ولا يألون أن جحدوا ديوني هذا يدون أن الدين تيدي بسكدي ذيه ورانا أنت دفرا ورحمة الدين لقوم الله هينه تمدي يسوي سفينة الأرض نجتها وقد أخذوا سهامهم وعاشوا nin waliba intuu qorigiisii qaatayba anigu waa dhintay iyagu wali way iska nooli
alla nimanku maxay horay ilaaween buu warba kuwaasaa ehela marka taa macnaheedu waxa weeyaan sidaa aynu u joognaa unbaad qolfoof noqonaysaa waa mumtalakaadkaagii aan lagugu iman jirin khaaska ahaan waa lagala wareegaya warba wuxuu joogaa furahaagii gaadhiga iyo furihii qasnadda iyo kabihii iyo dharkii kabarhka intii marka lala wareego ee dad qaataan ha iga taabanina arrimaha layguma yimaada aniga furayaashaydaas khaas bayin waa la qaatay kabihiina waa la gashaday waxaaba warba joogaaba islaantii kuu goonida ahaydna markuu mid iska guursadaba subxaan allah horidaadii ku khaaska ahaydna ayaamay kuu yaro barooratay 4 bilood iyo 10 ifkay kuu joogto way kuu sabirtay intii kadib way ka dhaqaajiso way ku ilowday arrinba halkaas ku ururay afarta arrimood bu safarkani safarada kaga duwan yahay inaynu xusuusano siduu nabigu inagu waaniyay dhikru akthiru dhikra hadim alladhat warbadiya buri badiya macaankan adduunyada ah ku haysaan geerida idinka afjari doonta idinka soo goynaysa geerida idinka jaraysa dhadhanka adduunyada iyo calafka ku haysaan xusuusteeda badiya quraankuna waa ka ina faraya inaynu badino nabiguna saas uu sallallahu alayhi wasallam faa'iidooyin badan baa ku jira inaynaan geerida iyo dhimashadeena aynaan ilaawin waxa kamida waa sabab للاستعداد ليوم الرحيل haddaad geerida xusuusan tahay waxaad u diyaar garoobaysaa maalintaa safarka ah ayaad u diyaar garoobaysaa markaasaad daymaha iska bixinaysa dulmigaad dadka ka haysa baad ka baxaysa dadka isa saamaxaysa dardaarankana waad qoraysa macnaha waxaad noqonaysaa qof iska shaqaysanaya oo maalqabeena hadduu doono oo wuxuu doonaya ah laakiin aan waxba dhulka ka oolin ee agabkiisu u diyaarsan yihin siduu inagula taliyay nabigeenu sala allahu calayhi wasalam isticdaadkuna waa muhiim haddii qaflad lagugu qabto adoo kala daadsan waa musiiba iskaga talagalo alaabta ku urursanaato midka labaad uu ka faa'iido yahay waxa weeye waa tashiid fi dunya wa yurdi alqaliil min addunya adduunyada ayuu kuu fududaynaya inaad aakhiro xusuusanta wixii ku dhaafay iyo wixii si noqda iyo bahashan dadku u waashuu ilkaha iyo gacmahaba ku dhagan yahay waxaad noqonaysaa mid zaahid ku ah inteeda yarina way kugu filaanaysa waxaad aaminsantahay kollayba in laga dhaqaajin doono si lama filaana ama kadis waxa saddexaad uu ka faa'iido yahay yukhafif aw yuhawwinu almasaa'ib inaad geerida xusuusantahay waxay kaaga faa'iido tahay musiibada ku fududaanaysa qofka had iyo jeer geerida iska ilowsan ama dadka aan geerida xusuusnayn waa kuwa baroortu ay ku badan tahay hayaa ee kolba la qabanayo ee la leeyahay uu soo waalanaya ee la xidhxidhayo laakiin dadka markooda hore barnaamijka ay ugu jirto inuu dhimanayo haddaan dhinto jadwalkiisa mustaqbalka ku daraya qofka dhintay iyo ehelka waxa ka dhintay iyo xaalad caadi u arkaya ila way isdaba socotaa dhimashadii iyo dhalashadii kani markuu dhasho mid kala sii dhimanaya oo xoolkiina halkana laga sameeynaya naxashkiina halkana laga sameeynaya waa laba xayaato waa laba arrimood oo caadi ah isdaba socda saa daraadeed baa geerida ugu weyn ee ugu musiibo weyn ee muslimka soo martay tii nabi maxamed baa sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed yaa gacanta ku hayay xaaskiisina waa karstiga Aisha oo daayar oo dumara hadana may barooran manay qaylinin laana way ku talagalsanaydo hadaladiisa ka akhriyaysa inuu sii dhimanayo nabigu alayhi salaatu wasalaam marka musiibadu dadka ay had iyo jeer la yaabka ku noqotaa waa dadka geerida aan xusuusnayn ayay ama kaagii aan fariir ku noqonaysa haddii aad tiraahdo hebelo haddaad dhimato ku oranayo war dhiman maynaha nahaabarin war hebelo haddii sidan iyo sidan ilaahayba ma qadaru ku leeyahay marka musiibaday fududaysa had iyo jeer xusuusta geeridu waxyaabaha ay keento waxa kamida yamnac min alkibri wayad'u ila tawaadu kibirkana qofka way ka yaraysa haddaad aragto qof isqaadqaadayo oo dadkiiyo duunyadaba saa ugu tumanayo dulmiyaya oo waxaanu hayn ismooday oo shaarkiisu ka ballaadhay geeriyo waa ka dheerta qofka aakhire iyo dhimashada xusuusanaya qabriga noocu ku dambayn doona ma kibro waxa kale waxyaabaha fawaidka ah amaba shanaad yuraqiq alqalb wa yudmi'u al'ayn wa yakhluqu as-sa'ada inaad geerida xusuusan tahay qalbiga dabcisaa qalbigaaga qalafaya hadii ishaaduna way qoysaa ilaahay daraadii bu qof mararka qaar kood u ilmeynaya ila waxaanu la ilmeyn laanahay aakhira xusuustiyo geerida ayaa inagu yar saadana way ku samaysaa gaaladu waxay yiraahdaan dhimashada iyo naaraha iyo waxa saadada inaga qaadayaane
wacdiga noocaasa dadka ha u sheegina oo in la naarayo oo la kululeynayo la cadaabayo sacaadada ka xumaynaysa sacaadada qofka waxa u sababaya inuu aaminsan yahay inuu dhimanayo ku talagalsan yahay waayo adduunyadii strastiga loo qaadayo loo qulbayo loo waalanayay si dhinkeedii baa ka dabcaya qofka marka xaalad caadi uu ku jiraa sacaadada iyo had iyo jeer qalbi nuglaanta iyo inuu qofku noqdo qof naxariis badan xusuusta geerida ayaa ka faa'iido ah ugu dambeyntii dhalinyarooy hamoodina dadka waaweyni uun inay hore u dhintaan oo isleediin walaahi ka 60ka gaadhay oo bisna anu wali mustaqbalka baynu ka maqal lahaa hablaha yar iyo nabada yar yar war imisa qaaraan mustaqbalkii wali ku soo taabanin hore laga sii tuqiyay intaan joogay waxaan xusuustaa dhowr iyo 80kii nin baa Sacuudi Arabiya u keenay lacag badan buu siitay inan buu aroosanayay habeenkii arooskii ayaa loo soo galbiyeeyo markii inantii oo shaaximan oo gaashaaman halkan gurigii lagu sii galbinayo ayuu barrayslahan iska soo yara dhalaalinayaa si yara suga sidii baaba lagu waayayba saxaafaddu waxay qoraysay caruusuladii fuqida arooskii la waayay halkiiba ugu dambeysay oo inantii isaga aan isku arag sanad may gaarin wali inan da'yar oo ninuu guursaday ayaa bari dhaweyto oo iyada oo arooskeedii loo ballansan yahay subaxnimada labadii qole ee yaradkiiyo gabaatiga sita ay isku ogeysiiyeen aaska aynu tagno inantii way allaysato way dhimatay taasina dharaar dhaweyd baynu maqlaynay marka dhalinyaro xagga odayaashii islaamaha geerida ha u sii riixinee dee waa idinka arko shilalkuba da'yar bay u badan yihiin madficiyo rasaastii waxa bedelay bahal baabuur la yidhaahdo markaasaa lagu leeyahay intaasoo dhalinyaro ku dhimatay intaasoo wiilala intaasoo hablaa bal ciidaha iyo waqtiyada la dalxiisa iyo fasaxyada eega marka iska diyaar garoobo rag iyo dumar iyo madax iyo raaciyad yar iyo weyn safarkaasi waa lama huraane si qurux badan aynu ugu diyaar garowno allah inoo fududeeyo sahaydana ha inoo wanaajiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam subxaana rabbi